reer Somaliland iyagu waxay yidhahdeen waanu ka quusanay waxan marka waanu soconay safarkaasaanu galnay hal isku duceeyay hadday leeyihiin dembi baa Hargeysa iyo Burco iyo meelaha kale la burburiyay dembi baa laga galay dembigii waa in la soo xiraa de qof caadi oo jawhar jooga muu sameyn dembigaas dawlad iyo military qabyaaladaysan baa samaysay ya waa laga bogsiin karaa Somaliland maaha qayb yar oo kamid ah Soomaaliya ma aha waa waxyaabaha adigu taa uma jeedin laakiin waa waxyaabaha sheekada xamar ay ku meeraysato iyo meelaha kale ee koonfureed Soomaali baan nahay diin baan wada leenahay islaama afaynu ku wada hadlaa qabaynu ku wada nahay waa in meel qura la iskugu tagaa Somaliland waxa weeye wadan xor ahaa oo gartay xornimadiisii inuu keeno Muqdisho ilaa walaalahoogii kale ee Soomaaliya Italian Soomaaliya deganaa aynu labada wadan isku darno maha xubnuhu waa waxa imika la sii sarrafay ee Jubaland iyo Puntland iyo Maxayland iyo waxa la yidhaahdo runta wanaagsan tani way qoran tahay taariikhdeedu waxa weeyaan abtirsiinkan waxa laga yaabaa inay kala duwan tahay Soomaalidu markay xadkii jamhuuriyadda eegaan ayay moodayaan inay hiiraan iyo Hargeysa kala fog yihiin laakiin marka sida u soo jeexdid ee dhulka Soomaalidu ay degaan Itoobiya had martid iyaka ayaa iskaga dhow Boosaaso iyo Beledweyne waxa iskaga dhow Hargeysa iyo Beledweyne baa iskaga dhow marka eegto khariidada marka inaan dadku kala fogeen baad kow ra'iisul wasaare Somaliland oo kartile in degdeg u magacawdo haddii de wadankan la wada leeyahay de soo damaad garan ee aanad noqon oran de haddii daxwiyihii baa imika de noqday madaxweynihii kolka de nimankii daarood waa in la raadiyaa in ra'iisul wasaare noqdaan waa shaqadii waxaasi maxaan ku raahno soo aragnay ee kama tagno way diintiina waa in la isku hayaa islaamnimadii iyo Soomaalinimadina waa in la isku hayaa soo aad garmis laba wadan oo midna British Somaliland orange midna Italian Somaliland orange bahay soo aad garmis hore ya de Soomaalinimada gabowday hore ma ogidee la wada deganaa ma og laakiin laba wadan oo isku jiray ma ahayn xadadkan la in kala dhexdhigaya maxay keeni doonaan baan ku nidhi qadiyada Somaliland sida loo fahmayo in farsamadeedii imika la keeno soo degamis cid dhageysataan waa ma ogoshahay dawlad inaynu noqono qayrkeen waan ka hadnaye in gaarsiiso meel qayrkeen Itoobiya iyo Kenya iyo adduunyada kale caruurteenu hay la tartamaan in caruurteena yakh looranoo laga khashifin oo qandoof lagu tufin ma rabtaa adiga marka meelay waa maraysid in lagu ixtiraamo ma rabtaa aniga cade imay kaxayn aniga waxay kaxeeyay waxa la yiraahdo yaa yakhsi kalmada yaa yakhsiga waan filayaa inaad garanayso aad ku labooto soo aad garanayso oo aanad liqi karin yaa yakhsi cadadu af Ingiriisiga waa anger wad caroonta ka waxa weeye nusa saacad dabadeed bay cadadu baabaaysa yaa yakhsigu soo waxa weeye wixii calooshaada dhan ku jiray ayaa dibadda u soo baxay dibna cunto dambe la mid ah ma liqi kartid aniga yaa yakhsi discuss baa la yiraahdaa Ingiriisiga ayaan ku soo arkay maantana taagan haddaynu Soomaali nahay abtirsiin kala duwanna waan leenahay oo marka dambe meel iskugu soo wada biyo shubanaysa dhaqan islaamnimo iyo Soomaalinimona waan leenahay leadershipka iyo hoggaanka ya in kubadda meel cusub oo sare laga ciyaaro Somaliland maanta waqtigeegii baa yimid soo hada garmis oo la sii dadaalo marka waxyaabahana inaan intay kartida tahay aan runta ka sheego iyagana runta aan u sheego oo haddii aanay waxa ka faa'iideysan oo ku soo noqoto bulaacadii Muqdisho ka dhacaysa ku tolamidii ay ku soo noqoto iyaguna marka way hafan doonaan waxa yar ay qabsadeen oo kala daadan marka dibadda waa la isnacay waxaan u baahanahay dawlad federaal ama centralized adigu doonaysid dooraanaku jawaabta dadka leh waxa weeye mid sharaftii qarannimo ilaalisa oo awoodeedii la marka adduunyada la xaajoonayso oo la barbar ordin oo mid intuu ka yimaado Hargeysa ama Baydhabo ama Boosaaso ka yimaado anna waa kana waan hayto ilaah ee qof qura iyo baarlamaan qura han isugu geysano maanta waxa la igu leeyahay warka la soo siinayo dadka xamarka jooga ay soo siinayaan waxay ku leeyihiin qabyaaladu maanta ka cunta corruptionku maanta ka xuy soo aad garmays dadnimadu maanta ka cunta waxaana waxa keenay dawladda cusub ee Xasan Sheekh madaxa ka yahay ay dadkii ku leeyihiin soo aad garmays war weyn ayaa dadkii hay kuwa goboladuna ama Puntland ha joogaan ama Baydhabo laan ha joogaan ama Kismaayo laan ha joogaan ama Hargeysa laan ha joogaan yaa ma kamay shaqayn in lagu barto dadka si toosan oo siman oo xalaala inay u simaan marka xurguf baa ka wada hooseysa waxayna u wada tartamayaan ma aha shirkan sidii aayahan dantan Soomaalida looga shaqayn lahaa waxa weeye inta sida loo jaangoynayo inuu xaqayga inta u jarjeersamo anigu han kaga soo baxo meesha
halka la iska hirdiyey biyaha hoostooda waa taas weeyaan su-aasha taalla ee la isweydiinay xamar la isku weydiinay waxa weeye samatar maxaa ku kalifay war qof 30 sannadood arrimaha Soomaalida xaji laayay inuu maalin qura sida uga dhaqaaqo maxaa ku kalifay weeye su-aashu taa la isma weydiiyay ilaa maantana cid weydiis male ana waxaan ama Axmed Samatar han walaal la ahaado ama Xaliime Cabdillaahi hana wada dhasho xaq baan u leeyahay wadankan qaybteeda inaan ka qaato samaad garan Axmed marka hadduu goostay inuu xaggaa yahay aniga isaga oo walaaltinimada iyadu hay xalaal tahoon la soo kala dhex mari karayn saaxiibtinimada iyaduna hay dhab tahay laakiinse Soomaali waxay ogaataa maanta halku joogi maanta halkan joogno siyaasadda inaan isku khaldami karin shaqo isku mid laakiinse waxaan rajaynayaa hadduu meesha tagay wax wanaagsan meesha inuu ka keeno inaan meeshan joogo oo fursad isiisay inaan Soomaali daafaco intii itaalkayga u malayn maayo in la igu dhalilayo Soomaad garan markii xamar la garaacay Itoobiya garaacay u malayn maayo in qof iga qayladaan dheera oo Soomaali inuu jiro dadkayga inaan difaaco haddaan anigu rasaaseen qori baan ridi karaa qalin baan ridi karaa Sooma inaan ku difaaco taas markhaatina waxa ka in wadamo kala gooniye ay yihiin de xidigtan dhexdeedu 5 gees bay leedahay gees qura yeelan lahayd shan gees bay leedahay shantii gees saddex ya waa kuwa iska tegin dadka garmis Itoobiya maxaan ku raayay kalinkii shanaad sidaas ay ku dhaqaaqtay maanta Kenya iyo DNFD dambe ma jirto sidaas ay ku dhaqaaqtay Djibouti de waa taas socotay wadanka noqotay jamhuuriyadda gooniga soo garmis Somaliland xaq bay markaa u leedahay labada gees soo haray haday la garan weyday oo noqotay inaanay dani ugu jirin oo ay noqotay xukuumaddii intay xamar ku soo ururto inay inta kala nuugto ya ay aragtay xaq bay u leeyihiin taariikhduna xaq bay u siinaysaa inay yiraahaan annaguna geeskii afraad haddaanu nahay waanu ka baxnay waxa weeye haddaad ka soo bilowdid intaan Soomaalida isticmaalku qabsan xadadkeenu maxay hayeen in kala dhex yaal haday jireen khariidad baa jirta dadkan la wadaagi doono dhawaan ya oo tusaysa intuna Talyaaniga iyo isticmaal Ingiriiska iyo Xamaarka iyo Faransiiska iyo Ingiriiska halkan Kenya intuna iman dhulka Soomaalidu wuxuu ahaa xad in kala dhex yaalay oo oranaya gabadh yahay hay soo dhaafin reerkayga halkan dagay waa xadkayga waa halkaas ma ayan jirin sohdii ma lahayn calankana waxaan u qaadanay annagoo ay nala tahay inuu beenoobay calankaasi uu beenoobay isticmaalka shan inoo qaybiyay Hargeysa wixii la mid ahaa meel bay mareen Djibouti meel bay martay Jigjiga iyo Dirraba meel bay mareen NFD meel bay martay Muqdishona meel bay martay waa la soo dadaalo Soomaali baa ka dadaashay in xadadka aynu iska dhex qaadno laba ku guuleystay ahdi bay saxeexdeen ahdigaasi inay dimuqraadiyad midaysan noqotaan ahdiga waa la jabiyay military baa yimid markaas dadkii garaacay ya Soomaad garan military baa yimiday sideedii gobol ee dawladihii rayidka ahaayeen ayaa la yiri odayaal baa u yimaada Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariiste odayaashii gobolkan hadaan nahay waxaan rabnaa gobol baan rabnaa waa la siiyey sideedii gobol ayaa koronkorooyin dhalay 18 koronkoro ayuu noqday taanaku waxaanu nahay dad qable ayaan hadaan reer Soomaaliland qabbaanu leenahay waxaanu nahay dadkii ugu horeeyay gobonimo qaata ayaanu nahay waanu isku kalsoonahay qabaa'ilkiiba masaakiina dadka caadiga waa kuwa kulaanku xaasuman rabnaa siyaasiyiinta intay macangag boobaan ayay doonayaan inay iyagu isku diraan si dadkii ay uga soo horbaxaan iyagu markaa ay meesha u fadhiyaan aniga hunguri dambe oo igaga jira siyaasadda Muqdisho ma jiro macnaheedu ma ahayn reer waqooyi la dhaco macnaheeduna ma ahayn koonfur la dhaco waxa weeyaan walaalahay Hargeysa ka yimaadaan Boosaasaha ka yimaadaan galbeed ha ka yimaadaan Kismaayaha iyo ha ka yimaadaan Raas Kaamboni qof walba Soomaali wax xaqiisa iyo xaqiiqa inta helo han wada guuleysano oo qoorta intan sidii waagi hore aan ahaan jirnay han ka sareyno ayaan rabaa yaa isiya fursad reer waqooyi han ku hor fadhiisto dood baa kala qayb qaba deegaanka ma tagi kartid